aabbahan da'da waxa uu ilmeynayaa inuu cadaalad helo. sheekadiisa kol hore ayaan halkan idinkula wadaagay, maantase way ka duwan tahay sheekadii hore oo waxaa lagu haystaa in wiilkiisa oo 7 cisho frinjeer ku jira uu ka saaro cisbitaalkana amar ay ku bixiyaan. xaggee ayaan geynayaa haddii aan frinjeerka ka soo saaro meedka wiilkayga ayuuse ku qayla daaminayaa amaba uu ku ilmeynayaa aabbahan. 7 maalmood isku inta frinjeer ku jira haddii waxa bilaha laga saaray deengeyna ma qonaqanay si uu cadaalad u helo fadlan fariintan gaarsii meel fog oo shargaray meel kastana ku faafi si loo arko oo aabbahan cadaalad degdeg ah u helo. maanta ayay adigu mas'uuliyad ka saaran tahay inaad aabbahan u heliso. aabbahan waxaa lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Macalin, waxaa wiilkiisa 7 ka hor lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. waxaa dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. xasan Cabdiraxmaan Macalin ayaa lagu magacaabi jiray marxuumka la dilay, Allah u naxariistay, isaguna wuxuu ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. saaxiibkiis marka uu dilay waxaa wararku ay sheegayaan inuu baxsaday oo weli aan la qaban gacan ku dhiglihii dilkaasi geystay. 7 kadib warbaahintu waxa ay booqatay hooyga aabbaha xasan Cabdiraxmaan Macalin, isagoo oo ilmeynaya ayuu sheegay in hadda lagu amrayo in wiilkiisa meedkiisa laga saaro frinjeerka oo muddo 7 ah uu ku jiro. isagase tala faro uguma jirto oo ma hayo shaqsigii dilay wiilkiisa oo cadaalad uusan weli u helin. wuxuu sheegayaa inuusan garanaynin halka uu la aadayo meedka wiilkiisa oo xilligan aysan ahayn in war noocaas la mid ah uu ka soo baxo maamulka cisbitaalka uu ku jiro meedka. Allah u naxariistay xasan Cabdiraxmaan Macalin. Cabdiraxmaan Macalin oo ah odaygan da'da aad u jeedaan waxa uu ka mid ahaa ciidamadii Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dagaalkii 7/7 ee cashirka lama iloobaanka ah loogu dhigay Ethiopia. xubnihiisa ugu qaalisanaa ayuu ku waayay difaacidda qarankeena. maanta samiyuusan naga mudneen inaynu u helino si uu cadaalad ugu helo wiilkiisa oo 7 frinjeer ugu jiray la amrayo in laga saaro meedkiisa. qof kasta oo fariintan ay soo gaarto ayay mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay inuu sii faafiyo si aabbahan uu cadaalad u helo. dhacdooyinka argagaxa xambaarsan ee ka daba tagga aan lahayn ayaa si weyn ugu faafaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaa ugu dambeysay dilka loo geystay, Allah u naxariistay, wada mooto bajaaj oo xalay aflagaado loo geystay hooyadiis darteed u godgalay oo askarigii dilayna ilaa hadda laamaha ammaanka aysan gacanta ku soo qaban. waxaase weli baxsadka laamaha amniga oo aysan ku guuleysan inay soo qabtaan gacan ku dhiglihii dilay Allah u naxariistay Ustaad Cabdiraxmaan oo toorey ama mindi loogu dhex dilay iskuulkii uu baraha ka ahaa ee CD oo ku yaala degmada Wadajir. dhacdooyinkan oo idil oo soo taraya waxaa lagu baaqayaa in dadka geystay cadaaladda la hor keeno si ay tusaale ugu noqoto shakhsiyaadka kale ee iyana qorsheynaya inay geystaan kiisas noocan oo kale. ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa daawade. waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed. nabadgelyo.